Ka waran in aad safar ku gasho taariikh qarni badan soo jirtay oo Turki ah, oo aad isha la raacdo sida waddooyinka iyo dhismayaasha iyo masaajido ay run ahaantii uga markhaati kacayaan isbeddelka dhaqameed iyo casriga ee dalkan soo maray. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada meel ka soo dunida dacalad ku dhowd aad ka jirtiin. Halkan waa podcast, waa Google podcast. Magacaygu waa Idonis. Maanta mawduuceena podcast here waa architecture of Turkey, horumarka Turkiga uu ku sameeyey waddooyinka, dhismaha iyo masaajidada. Haddaba mawduuceena guda galno. Dhismaha Turkiga wuxuu run ahaantii ka tegay isbeddel oo yaqaan isku dhafka dhaxal ay leeyihiin dhaqameed iyo casri ahaan. Laakiin labada marka la eeganayo marka laga soo bilaabo waddooyinkii Byzantine, dhismayaashii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ilaa iyo kabashadii casriga ah ee ay ku magacaabeen jamhuuriyadda. Taariikhda dhismaha ee Turkiga loo yaqaano architecture-ka run ahaantii waxay ka turjumaysaa hal abuurka iyo xadaarnimada iyo waxay sameeyeen wax loo yaqaano horyaanimadan aan yahayn dad xadaarad ku fiican ee soo martay. Maanta waxaan ka hadlaynaa dhismayaashani astaanta ay u leeyihiin heer dhaqameedka iyo horumarka ay soo sameeyeen. Haddaba qodobkan ugu horeeya waa qodob isu taagay muhiimadda iyo horumarka ay ku dhismayaasha guriyaasha ay sameeyeen. Haddaba waddooyinka hore marka la eegayo iskuiska taariikh ay waxmadadu ku yaalo meel loo yaqaan iskuis taariikheed ah. Waddooyinka Turkiga sida Via Egiptia oo xilligii Byzantine ahayd run ahaantii lafdabarta ganacsiga iyo isku socodka iyo dhaqaalaha qarniyo badan oo soo maray. Maanta inta badan waddooyinka casriga ee Turkiga waxay raacayaan ama daba socdaan waddooyinkii hore. Mudaneta waxay tusinaysaa muujinaysaa in taariikhdu ay tahay aasaaska casriga ama waxa loo yaqaan modernity-ga xadaaradda jadiidka qarniga 21-ka. Qodobkeena labaad waa saldhigga waxa loo yaqaan waxa weeye taariikhdii ganacsiga lagu magacaabi jiray Seljuqyadii oo ahayd xilli boqortooyaha oo dhiseen saldhigyo ganacsiga oo run ahaantii ay ka tegeen saldhigyo waxa loo yaqaan saldhigyaasha bazaarka ama ganacsiga dhismayaasha waaweyn aqalada waaweyn kuwa oo run ahaantii isku dhaf ahaa farshaxan ay ka sameeyeen kuwa ay ku sharaxayaan farshaxan iyo adeeg kale oo ay run ahaantii muhiim u ah horumarka dhaqameedka iyo dhaqaalaha ee waqtiga boqortooyadii Seljuqyada. Haddana intaas la fahanay haddaba waxaan si fiican aan u gudagalaynaa qodobkeen saddexaad ee ah masaajidada Cusmaaniyiintii kuwa oo reebay qurux iyo weynaayeen. Haddaba Cusmaaniyiintii waxay caan ku ahaayeen dhismayaasha masaajidada waaweyn sida masaajidka Suleymaan iyo masaajidka Salimiya. Masaajidadan waxay run ahaantii astaan ay ka markhaati kacayaan inay yihiin isku dar marka la dhiso dhismaha diinta, farshaxanka iyo awoodda waxay ka turjumaysay awoodda boqortooyadii waqtiga talinaysay. Haddaba intaan la fahanay qodobkan afraad wuxuu hoos ka xariiqayaa dhismayaasha guud iyo run ahaantii faa'iidooyinka iyo farshaxanka ay ku waxan jireen. Dhismayaashii Cusmaaniyiintii sida suuqa weyn Grand Bazaar iyo buundada taariikhda ah waxay run ahaantii ka turjumayaan isku darka faa'iidooyinka iyo farshaxanka marka la sameeyo. Taa waxayna tusaa mudane sida fiican ee Turkidu ay maanta jiilba jiil maalin kastaba ay wax uga tegayeen ama sanad kastaba wax ka reebayeen. Haddana inta ku dhaafno dhismaha weyn iyo ay waxaynayeen boqortooyadii Cusmaaniyiintii. Haddaba waxaan galaynaa qodobkeena lixaad ee markii ay ku dhawaaqeen loo yaqaan kabashada casriga waqtigii jamhuuriyadda ku dhawaaqeen siday ku sameeyeen buundooyinka iyo waddooyinka casriga siday u horumariyeen. Waa su'aal muhiim ah. Waqtiga buundooyinka waaweyn sida Yavuz Sultan Süleyman Bridge ee weyn wuxuu muujinayaa in sida Turkidu ay ka faa'iidaysteen teknolojiyadda casriga ah si loo dhiso run ahaantii ama la isku xidho dhaqaalaha iyo bulshada
xooggan. Taa waxayna tusinaysaa awoodda teknolojiyadda ay ku sameeyeen waqtiga. Haddaba masaajidda ugu waaweyn ee casriga ah ee dhaqanka iyo teknolojiyadda ka turjumaya masaajidda cusub sida masaajidka Jamlicha la yiraahdo, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu weyn adduunka ama dunida. Waxa ay astaan u tahay run ahaantii masaajidadan waaweyn ee teknolojiyadda in ay Turkidu ay go'aan qaadatay inay run ahaantii ilaaliso diinta iyo dhaqaaluhu iyo waxa loo yaqaano dhaqankoodaba, iyagoo run ahaantii la adeegsanaya teknolojiyad casri ah. Haddaba waxaan soo gaarnay waqtiga iminka gunaanadkii iyo gabagabadii mawduuceena maanta. Horumarkan ama loo yaqaan architecture of Turkey oo ku saabsan wadooyinka iyo dhismaha iyo masaajidada. Horta horumarkan dhismaha Turkiga wuxuu run ahaantii ka turjumayaa taariikh dheer oo run ahaantii isku xidhaysa dhaqan, diin iyo casri. Turkiga wuxuu yahay run ahaantii la qiyaasaya tusaale cajiib u ah sida dal u ilaashato dhaxalkiisa, sidoo kalena waxay dadka tusinaysaa tallaabooyinka horumarka casriga ah oo qofku ay waddanku ku horumar karay. Waa mahadsantihiin sida fiican u dhegeysateen mawduuceena maanta. Saa iyo kulanti wacan.